Sheekh Rusheeyare inuu mudnaantooda siiyey isla markaana maqaam sare ay ka joogaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaad ka garan kartaa sida loogu sahlay la kulankiisa. Waana markii labaad oo qaar ka mid ahi dadka baahiyaha gaarka ah qaba lagu soo dhaweeyo xarunta cilaajka Daarutooba. Nasiib wanaagse waxa ay toogtani la kuubsadeen xilli ay wada joogeen xafiiska xubnaha ugu sarsareeya maamulka cilaajka Daarutooba, waxaana ku wehelinayay sheekha kulanka lala qaadanayay xubnaha naafada ah maamulaha xarunta cilaajka Daarutooba Cali Maxamed Guure Cali Dheere. Booqashadooduna waxa ay ka caawinaysaa in maamulka Daarutooba ay ka warqabaan xaaladooda iyo waxyaabaha ku geedaama noloshooda, isagoona Sheekh Rusheeyare si ka duwan sidii hore u caawiyey maanta dadka naafada ah kadib markii ay qireen lacagaha kaashka ah inay ka jecel yihiin midda elektarooniga ee sida online-ka telefoonada loogu shubo, taasoo ay sheegeen inay ka caawinayso durbawa inay ku adeegi karaan ama ay ku adeegan karaan. Qaar ka mid ah xubnaha naafada ayaa uga mahad celinaya Sheekh Rusheeyare sida uu isugu howlay inuu wax u qabto lana sii wadaago dhibtooda bulshada muxsiniinta ahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alxamdulillahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. Walaalkeen intuu noo qabto waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol. Waa mahadsan yahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin, Ilaahay ha ka siiyo. waa tookadii labaad oo gacantiisa nagu sooro oo jabkiisa naga sooro muraadkiisa adduunyo aqrabtan adduunyo waxa ka darantan aqra Ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkiisa tamam hasiyo. waxaan leenahay walaalaheena muslimiinta ah oo shaaq ku xiran oo ku kala ahaadaan walaalaheena muslimiinta ah waa dad sidataas u yaalo qaabkaas u yaalaanahay oo ninkiiba halkaas loo kaliya ku taagan oo askan asxaabul ayaal ah xirfadan Ilaahay siyo shaqaysan karo xoog aan gooni ah maanta naga maqan halkaas xibin ma ahana ma jirto waxaan haysto waa dhaqaale la'aan iyo wax qabad la'aan waxaan u sheegaynaa walaalaheena dal idud meel ay joogaanba in nagula soo xiriiriyo sheeqeena wax alaal wixii tabartiina ah aad noo awoodi kartaan oo noo qaban kartaan inaad nagu soo xiriirisaan sheeqeena adduunyo aakhir muraadkiin tamam Allah ka dhigay insha Allah. Alxamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. marka ugu horeysa mahad Ilaahay askale adii waxa wiilkan fiiqan walaalkeena oo umada u adeegaya aragtay oo na soo dhaweeyay oo managoo dariiqa iyo jeedka iska taagan gacanta naga soo qabtay haddana jeebkiisa iyo walaalaha muxsiniinta oo dalyeed bad joogan oo soo bandhigay waa umad celinayna waxaan leenahay umada adeega waysaa Ilaahay wax kula qabto ugu horeysa annagana waa walaalkeena waa wiilkeeni waa naga xumaadana kululaaday dad waxaan ugu jira qowl iska soo qabara xasaaysa kara kuwa maartay nooc walba wax u yaqaana nooc walba isugu jirnaa marka waxaan leenahay barakallahu fiikum adinkuna yaani waa mahadsantii suuquna waa mahadsan yahay sidii ma sha Allah waana caawiya marka soo saacida waxa in la saacidana diinta qorayso ma sadaqan yanfaa aqaab kale yanfaa qof kale waxa ku tarkata ku tarweeyaan qofka macna walaal sidoo anfacana waxa waay ilaaha macnaha waxa waay qasina macnaha aad macnaha u jaazinaya wax ka wanaagsan ku jaazinaya marka dadka macnaha walaalkeen soo macnaha noo wanaajiyo oo macnaha noo gacan qabtay ayaan dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa Ilaahay insha Allah Ilaahay idinkiisina waxay macnaha sheekhayna nagu soo dhiibaan dadkaas waxa iska macnaha tabaaleysana iska nahay oo macnaha isku xaafada meel ka soo wada kaca marka dadka waxaan ka codsanaynaa insha Allah oo caalamka jooga inay macnaha si degdeg ah waxay awoodaan insha Allah nagu soo gaarsiiyaan. ugu dambeyntii aasaasaaha hay'adda khayriga ee Dawla Foundation Sheekh Cabdulaahi Cumar Cabdi Dawle Rusheeyare ayaa la wadaagaya shacbiga Soomaaliyeed baaq xambaarsan sidii dadkan loo taakuleen lahaa. alxamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wal adwaana illa ala zalimin sallallahu wasallam ala rasulil karim sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu rabbi wa salamun alayhi yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني إلهي بماضي تبارك وتعالى
naga dhiga dad islaama noo doortay ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khaasatan aniga iyo dadka maaragtay ila midka ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo doortay khayrka iyo wanaagan maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala nagu manaystay oo shaqana nooga dhigay hadda ilaahay baa iska leh waxaan rabaa halkan inaan walaalaha muslimiinta dhowr qodob aan ka iraado awal hore waxaan isku wadi jiray oo hal meel aan ka dhigi jiray hawlo badan haday noqoto dhaqan celin haday noqoto cilaajintii haday noqoto dadkii tawaalaysanay masaakiinta la siiyo maaragtay waxyaabaha ay u baahan yihiin ama baahiyaha gaarka ay leeyihiin in la taakuleeyo muxaadaraadkii intaba hal meel baan maaragtay aan walaalaha muslimiinta ugu soo gudbinay laakiin insha Allah taala waxaan go'aansaday cilaajkana in qayb gooni aan ka dhigo qaybta maaragtay samafalka ama oo khayriga loo yaqaan ama hay'adda oo Dawla Foundation in ay gaar noqoto qaybta dhaqan celinta ay gaar noqoto qaybta muxaadaraadka sidoo kale iyo qayb kale hadda aan rajeynay insha Allah taala weekend gudihiisa inay bilaabato qayb boarding ama ardada lagu xareeyo 7 jir ilaa 12 jir inta u dhaxaysa oo lagu talagalay xifdil qur'aan marka hawlaha Soomaaliya iyo saxiiba maada iskale موضوع هذا ربع هالكيان كجه الله وحوي هيئة دولة فونديشن أما مؤسسة الدولة الخيرية كفر عن تي حرونتي علاج كدار التوبة ما دام بشي بركة سنة رمضان يسودو ده إن لدردر جليو هوله ما رأيتها سمفلكها يضدكي مساكين تها إن لعاوية أو لجرب استاجو ما دام بشي بركة سنة رمضان يكارسن تاي مدافر بال أما أفر بال يحوجو وعن الله كرجنا سبحانه وتعالى نجو أمني إيمان قبله إنه الله تبارك وتعالى نجارسيو سيد هذا ودار كيسين با إن وولالا مسلمين النافع باهي جاري قبان حقيقة هدي أي هلي لهاين لقالو أو ما رأيتاي إن وحي وباهيهين أي كوكب سدان أو حقيقة نلاش هذا من نفس دهان تودي عروض تودي مارين لهاين لكن مع الأسف dad fiirinaya ma jirto culimo maaragtay ka hadlaysa ma jirto dad masaakiin ah oo maaragtay xaalkooda xaal u yahay culimadii inaysan fiirin dadkii maalqabeennada inaysan fiirin ganacsatadii aysan fiirin waxay u baahan yihiin la weydiin baahiyaha gaarka ay qabaan aan la wareysan waa arin runtii aad iyo aad u ayaan darro ah waxaan oran karnaa dhibaatada ama abaarta jirta ama colaada jirta waxaa koow ka noqon kara dadka masaakiinta ee la dayacaya ee aanan laga warqabin maaragtay aan laga fakareynin ba maaragtay ka qayb ah dhibaatooyinka maanta anaga haysta waxaan dhammaan walaalaha muslimiinta aan ku boorinayaa iyo culimada intaba in dadka la soo fiiriyo in naxariis leen lagu soo fiiriyo insha Allah taala ma ahan markii koowaad waa markii labaad oo aniga jeebkayga aan ka bixinayo waxyaabo maaragtay khidmad iska yar oo aan dhihi karo xaqiiqatan noloshooda ama baahiyahooda ma dabooli karto waxaan ugu talagalay dadka inay xaqiiqatan ay iga dayadaan oo waxa weeye waa sunno wanaagsan weey waa amal wanaagsan waa shaqo wanaagsan in dadka muslimiinta ay iskaga daydaan wanaaga wasaabiqu ila maghfiratin min rabbikum waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrkiisa iyo wanaagiisa iyo dambi dhaafkiisa in maaragtay loo degdego oo loo tartamo falyatana وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وحيابها إلهي تبارك وتعالى ضدك مسلمين تكبوري إنك ترتمان خير كان يوناجن عاونا ضدك مساكين إلا قرب استاجية إلهي تبارك وتعالى أنا وحولي هاي وناك أي خير كي سوك المستا حمانتي الدنبجنا هاي سوك المستا بإله الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم يحن نفس ديني أعطوه مرتين ومن خير خيرا وما تقدموا لأنفسكم وحين نفس دين أظهر من الإنسان ومن خير خيرها تجدوه عند الله إله تبارك وتعالى اكتبت كل إنسان صدقنا مال من نسخة مسو الضون كان إنه أنتوا ولا الكيس وكالمين بأسنا إله تبارك وتعالى كالمين يا دمان ولا الله مسلمين تا خير بدن الله يدين سيو وحان ما رأيت أن كور قلنا يا أما كبورنا يا ضدك محسنين تا أما هيدا محسنين تا oo dadka masaakiinta ay fangareynaya ama maaragtay khayrka ay u sameynaya ama caawinaya in ay soo fiiriyaan walaalahooda ee muslimiinta kaliya ma ahan dadka naafada waxaan hadda u ballan qaadnay rag ayaga ka tirsan in waxbarasho la siiyo waa wiil 19 sano jir wey waxa kale oo jira insha Allah taala soo bandhigi doona wiil yar oo wadanka aan waxba looga qaban karin oo halkan la igu keenay quraan saaray oo waxaaduna ka qaylin laakiin u baahday xanuunkiisi noqday xanuun dhakhtareed
in maaragtaa wuxuu isaga ku bixi lahaa iyo wixii asagana sidoo kale waa soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala. bishii ramadaan baa soo dhow walaalaha muslimiinta inay ka qayb qaataan. hay-adda lambar gooni bay leedahay, beej gooni bay leedahay. dhammaan qof kastoo muslima kheyrka jacayl oo maaragtay kheyrka faafinaya in walaalihiisa muslimiinta uu soo garab istaago. adduunyada maanta aaminaadiiba dadka ay ka tageen, iimaankii bay ka tageen. inay ayaga wax siiyaan iska daa dadkii waxay sameynayaan wixii loo soo dhiibay bay ayaga qayb ka qaataan ama ayba ku boodaanba. weligaa maqli jirtay waa booday weligaa maqli jirtay wixii dadkii masaakiinta loo soo dhiibay lagu leexin maaye ayadii oo dhan baa la qaadanaya. halkan qof baa laygu keena hadda oo jarmalkan oo malaynaya inuu ka yimid dad walaalihiisi baa sixraya. maxay waa nin masaakiin buu ahaa, hay-ad ba waxay ku sadaqaysatay oo u soo dhiibtay diamond bay u soo dhiibtay. diamondkii asaga ahaa looma geynin, dhaxda laga qaatay. halkan baa laygu keenay, quraankii baa la saaray, xanuunad wax uu dareemayay, balaaya ka qaylisay. diamondkiina ayagay gacanta gashteen. markii uu miirsaday oo fiicnaaday wixii ilaahay ka saarayna markaan wareystay waxaa soo baxday wixii shaydaanka uu sheegayay ninka wuxuu sheegay isku mid inay noqdaan. marka insha allahu tacaala waxayna noo ballanaa in aan caawino ama maaragtay aan taakulayno dadka tabaalaysan. taakuleey dadka tabaalaysan insha allahu tacaala. hada wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa duwistii farsamadii iyo codayntii anigoo ah maxamed yuulka. intaan warbixinta lamid ah kulmi doona asxaabey nabadgelyo.